soo dhawaada insha Allah fiidiyoga hala share gareeyo insha Allah arimo badan baan kaga hadlaynaa heesa yar dhageysta insha Allah tayar share gareynayo waxa jecel fiidiyoga aad iyo aad loo share gareeyo waayo dad badan oo waxyaabo badan ka qaldan yihiin insha Allah ayaan jecelahay intaan u sharaxo qadiyadan muddo dheer baa dad badan la yarwaniyo waxa jira cadnaanow marka bal inta share gareynayo shukri soo dhaw hala share gareeyo Somali midwaay maslaxay rabtaa mudna qaramide magaalo Somali midwaay maslaxay rabtaa mudna qaramide hala share gareeyo أنا سيستم كي لابتوب كويس مثل سودا غير حمر ما نقضي بوي يا والله وريادي ولا قلتي يا سودا سودا هذا إن شاء الله هذا سيستم كي لابتوب كفيسبوك واس مدلي وحصب ولا صبح بعين على بك أنا وني كان فيسبوك أنا يغطى maskaxala rabaa miirlees ku yeelo daryeelo muxugalo xigtee soo dhawaada insha Allah hala share gareeyo warniyo xaasidnimada iska daaya nacala inuu yaali gabdhaha oo share gareysiinay mushaashan shawaarkaasa wax loo sheegay warniyo raggan la yaabay meesha ku jira dumar u baa share gareysiin warniyo xayawaansana rag uniyo wallahi dumar u baa taqaan sharkeeda rag ba ma share gareysiin waa maxay raggan niyo madracayaan u sheebinaniyo ma ba share gareysiin هذا أبغى حمورات يرسم مرسل الحجاب يرسم كسلها كماك بين مركب قال لها شركه واحد رجع صومال الله يا منيو واحد دو مربى شرقرية رجع مو بشرقرية يا والله يا بس سبحان الله مركا المهم إن شاء الله أنت سامي قبضن لكن والله يا أبي وانيو رجع صومال ده ترى جلين أرماهيجا رجع صوماليو واني هرت ما دمر بحنياي نجح حدي ويرجع لو شرقرين رجع هتي سوق قلابه ما شرقرين يسين لكن دمر هتي سوق قلاب كماك بيجارس هايو الحقن جي وام حيو حنيني وما ناقصني ما ينقول شرطة رجع صومالي وعجيب ويا والله تذكر كله رجع لو شرقريان دليرتو ويا شرقريان وحي فيلكن وحالي راس صومال ورني دقنك صومال ما لها جريني وحي دقنكني قبل هاتي هي تراهو فيديو قال لي بودي يايو toban meelood baa la dhigayaa anaguna maanta dhaba ka hadlayna dan Soomaaliyeed ka hadlayna mustaqbalka caruurteena ka hadlayna waxa la ma bashir garanaysiin aabiya kuwas 57 rag oo dhawasaas misawaana qabiil caaya iyo waxa la yiraahdo xumaataan keena ayra qabiilka ayeedii hawaso fulaan hay kaas hawaso markaasa waxa waa shacab xumaatada jecel baabatiin caayida un baa ka heshin wallaah caayida ayaa ragow Soomaalidu ka heshin
laakiin hadduu nini walaalo wardanteena iyo soomaalinimo iyo walaalnimo iyo ayeeyo sheerba ku qaban maysin wallahi soomaalidu taariikhda gashay raggeeda wallahi waxaa la ogaaday dumar baa ka adag dumar unbaa ka adag haddaabay xabad yaroo macaan xagga ku arkaan liveka markiiba saasoo la boodaan share like comment ayeeyo war dee annakaba dee ilaahay ka baqaniyo war ilaahay ka baqa raggow gabdhahuna waa xaasidiino gabdhahoodan boo sheergareeyaan ya marka gabdhihii baa naga caaqil batay iyagiibaa markay live soo galaan waa isku sheergaraynayaan waxaa la yidhaha way isgaarsiinayaan laagii waa isku dhufanayaan commentigii waa isku qabanayaan laakiin ragga laa xawla illah walaa quwata illa billah isagiibaa gabdhihii buu sheergaranaya oo aduunu samaynayaayo ninkii walaalkii ahaaye soomaaliga ahaaye isku dhiiga ahaayeene la dhimanayay haddii dagaal dhacdo isaga unbaa hub kala qaadanaya ilahay gabar kula qaadan maysa adeer hubbe rag baa kula qaadanaya hubka ragga kula qaadanaya nabada ka shaqaynaya adeer waxaa la yidhahaa ya sheerka ku dhufadhiyo marka insha allah waxaa waan ka baxay intaas ba iga ahayd waana ila kaftan ilahay daay waxaa la dhalinyarta soomaaliyeed iyo gabdhaha soomaaliyeedba insha allah maanta xaggan waxaan usoo galay waxaa la yidhaha arrimo insha allah muddo dheer ayaa dabcan dad badan baa su-aalo badan isoo weydiiyey dad badan baa waxaa la yidhahaa siday doonaan u hadla dad badan baa waxaa la yidhahaa waxay doonaan sameeya qadiyadahan ayaamaan ka socda waxaa la yidhaha social media marka insha allah maanta waxaa usoo galay inta waxyaabo badan aan faahfaahiyo waana badan aan siiyo waxa weeyaan iyo talooyin waxaa la yidhaahaa aniga lagu yaqaano anigu marka ugu horeysa cadnaan baa la yidhaahaa nin adeer wasiir doonaya amba magac doonaya amba soomaali ku socda amba xil doonaya anigu maan ahayn mana ahaanayi aniga adeer hooye la yidhaaho maama meerkal baa xaggan ii fadhida islaan yaroo cadow qurux badan lacag bay siisaa guri bay siisaa waxaa la yidhaha 4 cunsuriyiin oo soomaaliya anigu adeer nin ku socda ma yihi ma fahamteen waxaan aan ka hadlayo amba waxaan aan soo gudbinayo waxay iga tahay soomaali jacayl iyo wanaag jacayl iyo gabooye jacayl madhibaan jacayl ayeeya jacayl dadkayga iyo tolkayga iyo waddankayga jacayl aanu qabo ayaan xaggan adeer usoo galaa ma fahamteen marka horta dad baa waxyaaba aaminsan oo dee nin isagu jecel kursi oo kursi kaga dhigtay amba wax kaga dhigtay baa wuxuu ku oranayaa dadkan waxay wataan dan gaara dan khaasa war adeer yurub baan joognaa alxamdulilah nimcaan ku noolnahay guryaan degannahay soomaaliya ayaa u baahan gebigeeda anigu soomaaliyana telefishon anoo 5 jir ugu dambeysay maanta burca xagga ku taalo walaahayna aqoon guryahayga xagga ku yaalaan marka nin ku soo socdana ma yihi maanta oo aabahay tawakalana guryaha waan gadayaayo jarmalkan business ka samaysanaya adeer xoolo ka samaysanaya meelaan ogahay ana musuq maasuq ka jirin qabyaalad ka jirin cunsuriyad ka jirin kana qabiilkaas kana laangeera kana laandheera kana baba ha aan ka jirin baan adeer joogaayo atoora ka ahay xaggana dukaana ka furanaya odaygaasa guryaha iga haya gacanta ku haye wallahi maanta bay yaraaho waxay godha xaggana keensanaya yaa ku socda 4 geel raac jiray oo telefoon loo dhiibay oo nagu waalayo Facebook ba marka al-umum inta xaggaas ka baxaya waxa weeyaan 3 qadiyadood ayaan xagga soo gudbiyay marka ugu horeysa xaggan waxa ka hadlaya qadiyada gabooye maadaama anagu gabooye aan nahay welina aan soo taaganahay wili abtigi cidna ka tagi mayso waxa weeyaan dad baa hadalka marka uu qofku yiraaho amba waxa uu qof wax ku dhaqaaqo jecel waxaa la yiraahaa inay lugaha qabsadaan inay wax ka soo saaraan wuxuu horumar lagu dhaqaaqayay qabsadaan dad baa xaggan soo taagan cadnaan iyo xamd gabooye ka baxeen cadnaan iyo xamd hawiyay noqdeen qabiilkoodii bay ka carreen ayay noqdeen saasay noqdeen baba ha hi hu ha ma garta xataa qaar adeeraan nahay qaar abtiyaalaan nahay marka waxa weeye adeerayaal number 1 waxa weeyaan qadiyada gabooye annaka markaan soo galnay oo pageskan aan furanay 10 sano ka soo wareegtay marka sida social media u soo galnay 10 years 22 2010kii sanad ka hor 2009kii baan halgan ka bilownay oo af carabi iyo waxa jajab ilaa aan dad isku keenay dadkii aan barnay gabooyaha iyo xagay degaan yihiin xagay ka soo jeedaan salaadii la isku dhacay adduunyo la isku baabacay adeeradeeda caynay adeeradeena caayeen isbaabacsanay waxa la yiraahdaa siyaasiyiin cid kastaba ilaa dhalinyarada soo saarnay ma sha Allah aragtiindii waxa xagga ka soo baxay jiwaalka ka soo baxeen ninka gabooye aragtiinay xagga caanka ah
jiwaalka xaggana laga soo saaray xaggan baa laga soo saaray xaggan dhinaca laabeeka guddoomiyahoodii baa lahay anigu waxaa xaggaa ka qaqeylinaya maanta marka waxa weeyaan waxaa loo soo saarayna siduu qabiil kastaba u yeesho dad u hadla hadafka ugu weyn aan anigu shakhsiyan aan ula jeeday markaan lahaa dhalinyar la soo saaro dhalinyar hadashaa la soo saaro dhalinyar waxaa la yidhaha ummadda fahamsiisaha la soo saaro hadafkaygu wuxuu ahaa inaa la helo dhalinyar wanaagsan caqli saliima leh ummadda soomaali la jaanqaadi karta fikir wanaagsan kasoo gudbin karta nin kastaba taariikhdiisa inuu ka sheekeeyo gabooyayuu yahay macnuhuu yahay ma dad walaalo wara dhashaybaa ma dad waxaa la yidhahaa bahashiibaa magaceed isku yimibaa isbahaysadayba wuxuu yahay gabooyahan iyo midgaankan iyo ayeeyadan la sheegayo waayo sababtu waxay ahayd dad badan oo qalad fikirkan ka aaminsanaa amba annaka naga aaminsanaa oo soomaali badan baa jirsay qaar baa namoodi jiray bahalo dracola yaa bakti bay cuneenay ayay sameeyeenay saasay qabteenay yaa marka alxamdulilah waxyaaba badan oo ka guulaysanay adduunkana waxaa ugu muhiimsan adduunka hadda eeg hadalkaaga qora anigu nin wax qora baan ahay yaa qoraayaan ahay qoraay kutub weli baan samay laakiin alxamdulilah intii yareedaan qoray wax badan baan ummadda u faa'iiday markaa wax qortid wax aadad wax qora aa leedahay isbeddelku wuu imanayaa markaa heshid dad si akaademi ahaan ummaddii wax uga dhaadhicinaya horumar waa gaaraysaa laakiin intaan group whatsapp ka sheekeeyo inaan meel yaro luuqa ka hadlo inaan nacnac xag meel ka iraaho oo afartaydii midgaha intaan soo aruursado luuq kusoo xidho adeer horumar lagu gaari maayo taa horumarka waxaa lagu gaarayaa inaa mujtamaca loo soo baxo mujtamaca wax loo sheego mujtamac ayaa la degan tahay mujtamacaasi inuu ku fahmo waxaad doonaysid iyo waxaa rabtid laakiin intaan qolel isku soo xiro ilaahay oo soomaali baabi ilaahay oo cadowgeega baabi waxaa jiwaalu ka soo gudbay waxaan ahay dadka ka soo saaray hogag dad badan oo ku jira taas cid diidi karta cid ka horman karta ma jirto marka maadaama maanta aan ummaddii u soo baxnay ummaddii aan barnay kolba waxaa la yidhaahaa qadiyadan waxay ku socotay step by step dad badan baa waxay weydiiyaan iyo marmar baa waxa soo qartaa waxaa la yidhaha face 1 face 2 face 3 face 4 waxaa ula jeedaa marka qoraaladaas oo kale soo qorisid waxaa ula jeedaa marxaladda caqliga gabooyuhu korba marxaladdu gaaray waxaan ka bilownay face 1 oo ahayd inaan dadkan iyaga laftooda aan ka dhaadhicino qadiyaddii face 2 wuxuu ahaa inaan mujtamaca soo dhex gelino face 3 inay mujtamaca hilfaha u qaadaan ay awoodooda iyo xoogooda iyo aqoontooda iyo wax kastaba ay tusaan maanta face 4 baa lagu jiraa face 4 waa maxay inuu gabooyuhu sii weynaado oo nin kastaba magaciisa ku hadlo oo nin kastaba awoodiisa ku hadlo oo nin kastaba maanta intaasoo afayaan iyo intaasoo dad oo social media ku jira baa jira nin kastaba maanta afkiisa ku hadli karaa maanta ma dhibaan ma u baahna inuu muuse u hadlo maanta ma dhibaan iyo waxaa la yidhahaa muuse ma u baahnaa inuu duwiil tumaal intuu xagga soo fariisu yidhaaho annakoo gabooyaha xuquuqdeedii baan rabnaa maanta ma u baahna ma dhibaan iyo tumaal iyo nin hawlaa intuu xagga soo fariisu yidhaaho anigu xaqaygii baan rabnaa waxaa la rabaa nin kastaba maanta social media ku jira maskaxdiisu waa agaadimi aqoonyahan buu yahay ummaddiisa iyo ummadda soomaali siduu iskaga dhaadhicin lahaa ayaa la rabaa taasina ma aha gabooyaa laga baxay gabooyo waa nahay hooyada haddaa aabbahay qabo adeer waa gabooyaa nahay meel la kala tegi karaa ma jirto wiil iyo abtigii laakiin waxaa jecelahay inaa boyntigaa la fahmo waxa weeyaan qabiil kastaba ummadaheena waxaa dhib isku keena oo mar kastaba laisku qabsadaa nin baa doonaya inuu ninka kale u hadlo ninka meel ku badan wuxuu doonayaa magaca gabooyo intuu guntado uu isagu ku danaysto oo isagu waxaa la yidhaha wasiiro ku helo markuu wasiiraha ku fariisto inuu dadka kale yidhaaho anigoo qabiilkaas anigoo nin aji filkaasi waa dhammaaday ila meerayso waa dhammaaday face 4 baa lagu jiraa imka nin kastaba maanta laga biloobo adeer ninka madhibaanka ah somaliland joog puntland joog xamar joog adeer magacaaga maxamed gargaarte ayaa xaqaaga ku doondoonanaysaa nin madhibaan waa laogaya waanaanays maxamed gargaarte baa lagu yidhaahaa ma garatay somaliland waa degtaa jabuuti waa degtaa ddc waa degtaa meel kasta waa degtaa lacagtaada iska arurso aqoonyaankaaga soo kaxayso magacaaga iyo afkaaga ku hadal ninka muuse kadaalig waa saas oo kale nin muuse ah
oo magaca madhibaan ku hadli kara ma la arki karo. magaca muusaaga ku hadal, dhibaato hadday ku soo gaarto af baa leedahay ku hadal, haddaa gabadh amba wiil amba cid dhibaato loo geysto afkaaga ku hadal. oo dhalinyar aqoonyahan ah oo social media ku jira iyo siyaasiyiin iyo cid kasta waa leedahay. ninka hawlana waa saas oo kale. adeer DDC haddaa ku badan tahay, DDC-gaaga dhulkaaga samayso, dadkaaga samayso, la xiriir. afarta madhibaan iyo muuse kula degta waxa weeyaan adeero, amba iyaguna suuqaa usoo baxaan oo waxay yihiin ha sheegtaan. oo ninka madhibaan wasiirkiisii ku helo waxaa la yidhahdaa DDC, ninkii tumaale DDC ku helo, ninkii hawlana DDC-ga ku helo, wasiirkiisa iyo agaasimihiisa iyo wixiisa. waxaa Soomaalida iyagu isku qaybiso boqolaal, iyagoo hal qabiila ayay boqolaal jilib iyo boqolaal qabiil u kala baxaan. waxaa inankoo gabooye ah oo aabba iyo hooyaba isku ahaynba, wiil iyo abti aan isku nahay, waxaa isku keeraray dadku waxay yidhahaan dadka laga tira badan yahay. Soomaali waxay noo bixisay dadka laga tira badan yahay, laakiin xaqiiqatan mayna laga tira badna. innaka waa laga caqli badan yahay, caqligayna nagaga bateen. magac yar baa lagu bixinaya, ha wallahi waa runtaa, waa ilahay bsooca, waa la tira badan yahay, wixii ba iska qaado. midgaan baa laga cararaya, kolba magac baa laga cararaya, kolba meel baa laga cararaya. marka adeerayaal talabaad, adeer ragga hadlaya maalin dhaweed waxaan daawanayay shir DDC ka qabtay beesha hawle. iga raali ahaada, runta inii sheegayay. waana la yasaayo, waana la gumaystaayo, madaxweynihii baa noo yimi, alxamdulilah ma baslahayba madaxweynaha ina imanaya. adeer hadalkaas laangaabka ma la rabo. waaryaa Mustafa Cagjarow, shalay toole adiga laftaadii baa Mareykanka ugu cararay oo baxsaday, ma fahamtid? dulum baa ka carartay. yaa adiga laftaadii baa cunahaasaa lagu hay. maanta markaa madaxweyne ka noqotay meeshan, dee adeer inta anaka xaqaygii la cuno miyaa yeelaysaa? ilaan xaqaagii adiga markii ka carartay, weliba adiga diyaaradaha lagu soo kaxeeyo, dad baa kusoo kaxeeyey. marka waxa runta intaa lasku sheego, Soomaali intaana runta lagaga leexan. anigu nin Soomaaliya anigu xaqayga ka bari maayo, anigu isaaqna ka bari maayo, majeerteena ka bari maayo. nimanka hawiye maanta le walaalaan noqonaynaa, anigu ka bari maayo xaqayga waa inaan ka helaa. 10kiiba waxaa la yidhahaa markay laba leeyihiin ana labadeedaan helaa. hadda weliba magacayga madhibaan ku helaa, maaha magacayga aan ku helo waxaa la yidhaha gabooye. marka waxa weeyaan waxyaabaha caqabada isku keenaya ha laga fogaado. gabooye intaasoo sannadood waxaa la isku haystay, mar kastaba dagaal dhex mariyey, mar kastaba cuqdadeena dadkeena sii dhex gelisay. nin baa doonaya nin kale magaciisa intuu ku hadlo. adeer gabooye cidna ma diidsana, anigaa inaga jecel, dadka meeshan ku jira baa inaga jecel. dad nin gabooye nacab ma jiro. anigu maanta jarmalkaasaan joogaa, nimanka hawiye maanta waxay leeyihin walaalaan nahay, iyagoo ilaah walaalaan nahay. anigu ma diidsana walaaltimadooda, laakiin haddaa maanta ilaaha xaggaa seexanaysaa, adeer guri gabooye baan ku gamaya. horta waa taa, horta gabooye inta ogaatiin. adigoo qurbaha joogo guri kaleba seexan maysid. guriga ninkaa muuse iyo tumaalun bay hurdada kugu imanaysaa, waayo waa wiil iyo abti. intaasoo sannadood dhibaato badna soo waramarnay, intaasoo sannadood duquudaadna soo waramartay. dad saas ku dhex galo jecel baan nahay. laakiin jaceylka waxaa ka dilaya, waxaa dadkeena inta isnacaan ka dhigaya, waxaa ka dhigaya nin baa doonaya inuu magaca ummadda kale ku hadlo isagoo aana kala tashan. maanta aniga markaan anigu cadnaan ahay oo madhibaan ahay, ka waran haddaan maanta anigu iraaho Soomaaliland baa la dagaalamaya, inay odayaashii madhibaanku inta soo kacaan ay yidhaahaan muuse waa anakan kula dagaalamana jabhad baan samaysayna. horey way u yidhaaheen, qayladii ka soo baxday waa loogyahay. muusii baa soo booday, tumaaladii baa soo booday, anaka dadkaasina matalaan waxaas. marka waxa weeyaan nin kastaba afkiisa amba jahannama ku galo, amba jannaha ku galo, amba waxa ku helo, amba yaxwayaan ku helin, ha loo daayo nin kastaba afkiisa intuu ka hadlo. aniga taasina waa experience aan inii sheegayo waxyaabaha caqabadaha ugu waaweyn oo ummadeena sii kala fogeynaysa oo horumar aan u gaari weyno. waxyaabaha horumar gaari weyni waa waxyaabaha inaan isku soo koobno uun magaca gabooyo kaliya maanta waa laga elbaxaya. waxaa la doonaya inta la sii weynaysiiyo. waa armuusow afartaada wasiir yaanay isaaq ku dhicin, yaanay majeertan ku dhicin, yaanay daarood ku dhicin, yaanay cidna ku dhicin, yaana lagu oran iyagoo familia ayay xisbiya samaystaan. marka adiga waxaa kuu diiday sidaa dadkaa kale u nool yihiin adeerta u noolaatid. anigu waxaan isku soo koobayaa magac keliya. marka aniga taas waa iga talo.
dhalinyarta caaysa salaadiinta iyo waxaan leeyahay shaqallo iyo waxaa ku shaqajaamaysa adeer odayga ka hala xor buu yahay dad markuu qofku helo dad la shaqeeya oo madhibaan iyo muuse ah oo tumaal la shaqeeya si daacadnimo la shaqeeya buu xalkaa soo farsanaya mustafa xagjar ku oranaya anakoo gabooyaa laakiin madhibaankii baa musuq maasiq wada waxaa la yidhahaa muusii baa musuq maasiq wada adeer tumaalkii baa musuq maasiq wada marka hawl intay magacooda ku hadlaan xaq bay u leeyihiin annakan ugu dhacday somaliland muuse ay ku dhacday ka hor tumaal bay hore ku dhacday adeer waxa weeyaan markaa nin kastoo afkiisa ku hadlo nin kastoo afkiisaasa ku ciilo ilaahay afwiina warsiiyey ninka madhibaan loo hadli maayo maanta laga bilowbo ninka muusena loo hadli maayo nin kastaba adeer afkiisa ka hadlo laakiin waxaa jirta waxa ahalnimaa ahalnimadu waa maxay adeer waa isguursanaa wili abti baan isku nahay waxaa la yidhaahaa raxam baan isku nahay alxamdulilah intaa in ka badan intaan qadiyada kasii dhigno waxaan u arkaa qofka sidaa doonaya intuu kasii dhigo qof doonaya un weligii intuu hoos ahaado weligii doonaya intuu shacabkiisa u dulmo weligii doonaya intuu magacuun saa u huuyo uu xaqooda diido aniga maanta madhibaan hadduu wasiir helo anigoo ddc jooga anigoo hawlaha haddaan helo anigoo tumaala haddaan helo anigoo yibira haddaan helo adeer alxamdulilah hadday laba helaan adeer alxamdulilah labada xataa qadi maayo abti baan ahay waa hoos imanaya adeer abti baa lagu yahay kaalay marka inaa qadiyada laga dhigo waxaa la yidhaha waxyaa meel xun laga dhigdhigo sidii dad cararayo qabiil kala sheeganaya adeer waa la ogyahay waxaa la yidhahaa nimankan hawle waa hawle qaasim waa niman majeerteena nimankan muuse dheriye waa la ogyahay waa niman dir ah oo waxaa la yidhaha de haddii isaaqa ay xaqoodii ka dalbanayaan walaaltimadoodii ay doonta la heshiyaan yaa u diiday annaku maanta haddaan nahay madhibaan waana la ogyahay weligeenna taariikhdu annaka tayadu beenna ma ku jirto joogjuuqna ma ku jirto weligeyga annakoo yar baan ogeyn inaan nahay waxaa la yidhaahaa maxamed gargaarte oo weliba nimanka maxamuud gargaarte intaan walaalanahay laakiin annaku waxaan diidi jirnay taas ayaa su-aasha taalla meesha taalla annaku waxaan diidi jirnay nin walaalkaayo beri hore ku soo cayriyey kula dagaalamay soomaali kugu daawaday dhibaato badan laguu geystay inaan anigu hoos imaado aan u daba carro laakiin maanta walaalkii hadduu aniga ii yimi maanta uu leeyahay walaal cafi walaal waxaa la yidhaha diyaar baanu ahay xaalkan doono baan ku marinaya waxaan doono baan diyaar kula ahay aan isla hadalno uun aan bal wixii aan inakoo wax awoyaashay sameeyeen inakoon ka gudubno adeer anigu maan diidin dee hadduu ii yimi isagu laakiin anigu waxaan diidaa inaan intaa tago runtaan anigu ka hadlaya wallahi beenbeenna ma aqaani madhibaan anigu 29 shirar saasoo kale oo dhigay diideen baan ogahay laakiin maanta maadaama raggan ay leeyihiin walaalayaal kaalaya meeshu waa nabad waxba maynaga rabni annaku waxna maynay baahni dad baa ka oranaya wallaahi nimankani waxay doonayaan intay nagu darsadaan nimankani waxay doonayaan waxaa la yidhaahaa inay fariskii u kacsadaan war faraskan u kacsanaya waa maxay iyagii baa maalin kastaba qarax ku jiray yaa wax isku qarxay yaa ma garatay iyagii baa lacag haysta adeer cidna ma u baahna ma garatay haddii cid waayaan adeer bangladesh bay qabanayaanoo ciidana kasoo kaxaysanayaan waa dadka lacagta haysta adeer 4 xabadood ma dhibaan oo meesha yaacasa adeer ma loo baahna marka runta ayaa lasku sheego qofku markuu hadlayo waa inuu wax waaqic ka hadlaa aniga nimankani walaaltimadeeda raba anigu saan arka shakhsiyan anigu weligay waxaan jecelahay arin markaan ka hadlayo amba arin markaan ilii soo gudbiyo meesha fiicanta wanaaga ka eego ma jeclintan weligay maan ka eegin meel xun anu dad baa jira maartay marka xataa wax soo qortid inta xun bay qaataan inta fiican cid qaadanaysa Soomaali ma jirto waa dhaqan Soomaali dhan ay leedahay marka adeer waxa weeyaan nimankani maanta alxamdulilah ay yiraaheen ay qaladkoodii soo garteen xamar laga soo hadlay shirar ingiriiska lagu sameeyay Soomaalilandna madhibaankii uu soo jawaabay waxaa la yiraahdaa Mareykanna xaflad laga sameynayo adduunka laga sameynayo oo shirki weynaa shir weyn baa jira aanay dadku ogeyn oo weli la faahfaahin shirkaasoo madaxda Soomaaliya oo dhan ka soo qayb galayso marka maadaama aniga walaalkii leeyahay Soomaali oo dhan baan u yeerayaa oo ku raali gelinaya madaxdoodii iyo cidoodii oo dhan adeer waxaan u diidayaa wax sababsan u diidayaa waxay tahay hadaba ku leeyahay waan ku raali gelinaya adduunka oo dhan baa isku keenaya adeer bas خلاص awgeena noo cafi wixii dhacayna way dhaceen marka waxa weeyaan adeerayaal ina qadiyada loo fahamsiyo ma dhibaano dad uu sheegana dadkan maaha annaka dad baa jiray sheegan jiray qabiilada kale oo xataa ma dhibaanka qaar baa jiray yaaci jiray anigu taan kari maayo
laakiin sheekadan adeer been anigu weligii been ma ilaygu iman weligii aniga cadnaan oo cid ku dhigsan aniga ma ila arag tiimkan ka shaqeeyay dadkan la shaqeeyay anigu cid ku dhigsan ma la arag laakiin waa maxay anigu laba arimood anigu waa ka dambeeya maanta laga bilowdo number 1 anigu nin madhibaan maxamed gargaarta oo nimanka walaalahay ilaahay hawshu wali way dhamaane wali shirar baan oo haray waaweyn shirarka haddaan ku heshiinina dee adeer waa isku imanayna shirarka haddaan la isku iman haddaan ku heshiina dee adeer waa kala dhaqaaqayna gabooyena ma anagu waa ka baxnay gabooye manihin ma laga maqlin cid madhibaana ma fahamteen sheekadu saasay ku dhamaatay wali waxa sheekadan hawiye wali processor dheer baa harsan nimankan imika waxay soo dalbadeen uun waa maxay waar balaasla fariisano waxa la yiraahaa orgi soo dalbadeen xafladaha la sameeyo Mareykanka arkaysiin meelahan kale arkaysiin waxa weeyaan xaflado nimanka hawiye ay ku teegaarayaan salaadiintood xafladahan kale ee Soomaaliland ka socota amba waxa la yiraahaa insha Allah Puntland iyo waxa la yiraahaa DDC iyo meel kastaba insha Allah madhibaankuna ku soo jawaabaya sababtu madhibaanku soo jawaabayana waa maxay madhibaanku beel yar maaha gabooye marka laga yimaado madhibaanku qabiil yar maaha salaadiintiisu dad yar maaha waa dad badan qoys kasta oo jilib kasta oo meel dega oo waxa la yiraahaa waa inuu ergadan ogolaada oo muwaafaqad laga helaa maanta haddaan anigu ergad Soomaaliland oo kaliya amba xamar oo kaliya ka soo baxday dee adeer xamar jifadaa degan Soomaaliland jifadaa degan DDC na jifadaa degan Puntland na jifadaa degan waa in waxa la yiraahdaa 14 jifadood ee madhibaan ay tahay arinta ka soo jawaabta iyagoo ogol intay walaalahood la fariistaan horta taa hal fahmo wixii waa process waa system weeyaan yaa la oran madhibaan baa isku tuuray maaha waan ka soo jawaabayna walaalkii baa xamar ka soo sameeyay yiri waan ku cafi walaalkii xamar la joogay baa yiri waan aqbalnay ingiriiska mid laga sameeyay nimankii Soomaaliland ba soo jawaabo yiri iyaguna marka waa laba walaaloodo midna wuxuu leeyahay cafi midna wuxuu leeyahay waan aqbalay wax dhibaato adeer meesha laga soo saaraya filmaan laga soo saaraya maaha ragga systemka ku hadlaya ma dhibaan hog buu isku tuuraya ma dhibaan isagoo wali war anaka shirki weynaa baan oo harsan madaxda la isku keenay aqoonyaanka la isku keenay Soomaaliya oo dhan boqorada la isku keenay nimanku sheekadooda way caddahay waa niman raba inaan la wareeshiino oo midnimada gurgaarto waxa la yiraahaa hawiye oo dhan inta ka tiro koob yihiin qabiil kastaba la soo qabto oo gacanta la isqabsado meesha isbahaysna maaha waa dad Soomaalidu luuqada u gashay kala jarjartay midba meel ku tuurtay laakiin maanta soo saaxi garoobay maanta waa la soo saaxi garoobay ninka ma jeerteen waxa ka budbooday aday ku taala ninka daaroodo waxa ka dhayay saaqo aday ku taala afarta mucaaradiin waxa la yiraahdaa bila hadafka deena keenii talaadeen anaga hore baan soconay qadiyadana waa lagu jiraa hadaa lagu guuleysan adeer waa lagu guuleystay hadaa lagu guuleysan adeer waxa weeyaan anaga madhibaankaygi baan nahay cid ma u baahan adeer waan diidi karnaa imkada marka waxa weeyaan adeer ina sheekada laga dhigo dad baan ku biiranaaya waxa maaha waa walaalahaygi heshiis baan dhex maraya hadaan heshiinno waan ku heshiinay haday qanciyaan okay hadii iyagu marka waxa rabna ay ku qancaan waa okay hadii la qanci waayo waa la kala tagaya marka iyadoo wali la wara fariisan si wanaagsan wali iyadoo si wanaagsan wixii go'aamaane ka soo bixin inay afar xataa xaga midgoys ka soo budboodaan alla ma dhibaan baa baxaya waaw warday adigu Saoudiga cararisi ninkaan gabooye Saoudiga adigu laftaada cararisi Muuse haduu tahay hada tumaal tahay hada yibir tahay Saudi kalba meel ka soo qabanayni anaga inuu haynaydi imankan anagu waan siideeni meesha doontin qabta anaguna meesheeda ba qabanayna laakiin abtinimnadeena yaa xumeynina ilaa goormayna bariini ma ilaa qiyaamaha walaalahayagii 20 sanadood ka hor bay yiraahdeen wali heshiinana ka diisan waxa diisanina waxa ahayd dadkaygaas ay ahayd de adeer maanta hada adigu cararkii ablooday 2016 maantana 2020 ba ku jirna de adeer inta soo sanadood baan kala war joog war yaa gacan kaliya war yaa maanta la kala yaaco walaaltimadeena iyo ahnimadeena aan ka shaqeyno gabooye adeer maanta gabar Muuse hada dhibaato loo geysto adeer waxaan ahayd adeerkeed baa naaftigeed baan ahayd dhiigeygii bay tahay maanta gabar Soomaali amba wiil Soomaali dhibaato loo geysto amba xaqniisa u heli waayo adeer ana oo hadlaya ana oo jooga waa ina taas horta niyada gashataa
laakiin rag baa waxaa jira markay gabooye ka baxaan markiiba yidhaaha gabooye ma nihin anaku ma nihin waa la hayaa waa la hayaa adeer ya wallahi ma garatay marka waxa weeyaan runta adeer intaa laisku sheego raggan hawiyuhuna adeer ma diidsana waa af buuxa anaku waan weydiinay waan ku niri waxaa la yidhaha adeer anaka dad baan walaalanahay isla soo kornay intaa ininku nagu daawanayseen waan isguursanay magacaa gabooye coloowe midgaan yaa magacyo badan ayaan kusoo mudownay marka adeer dadkayaga beritole ayaa la oran ninkan tumaalka waayo anu beritole haddaan helo wasiir aan anigu aanan cilmi hayn dee wiilkayga tumaal baa soo kaxaysanaya kursiga ku fariisanaya hawiya miyuu diidi karaa abti baanu ahay wiilka muuse ayaa soo kaxaynaya kursigay ku fariisanaya intaan u gela horaya waa ina abti baanu ahay miyuu iga diidi karaa hawiya iga diidi kari maayo marka adeer waxa weeyaan raggaasi arrimahaas oo dhan way ogol yihiin markaa nacnacday waxaa mala rabo ma fahamteen gabooyow ragga baan arkaa xaggan aniga maalin kasta bay soo qarqara madhibaan baa ka baxay waan hayaa fiidiyoyadiini wallahi waan hayaa xagganay ku jiraan salaadiintiini odayaashiini ma nihin madhibaan waa puntland yaa nin isaaqayo nin waxaa la yidhaha cagdheer iyo ayaa laska dhaadhicinaya ya madhibaan marka waxa weeyaan adeer waxaasna waxaa keenay saa inii sheegay dadkan afka ku wara hadlaya afkan dadka ku hadlaya ha la joojiyo afkan lagu hadlaya qabiil kale ha la joojiyo 2020 adeer madhibaan hadday qadiyadan hawiye ay socoto hadday qadiyadan laleeyahay hawiye waa socon waayey madhibaan maanta diyaar wuxuu yahay inuu magaciisan ku hadlo yaana la swaalin xaqiiqa waan ka hadlaya wallahi intaan anaku dadaalo facebookyada soo fadhiisano oo madaxda cayno oo somaliland mudaaharaad ka sameyno iyo puntland oo annaka jeelka lagu guro oo nin kale intuu iska yimaado oo waxaa la yidhaha muuse iyo tumaal iyo yibir intuu kursi ku fursi yidhaaho anigoo waxaa la yidhaha caraba anigoo nin majeerteena anigu magacaygii waan ku fadhiyaa hadda magacii gabooye ayuu ku qoran adeer ka yeeli mayno filinkaasi waa ayla meerayso waa tagtay nin kastaba afkiisa ku hadlo gabooye cidna may ka bixin afkaa ku hadal de adeer afkaa ku hadal af baa leedahay somaliland inta qarash naga gashay guryahaygii baan xataa iibini markaasa markii dambe naga baxeen ma been ba amul billah caleyki xataa biyuuti cateed muwaadinnimo muwaadin gabooye ayaan ku bixiyey muwaadiniintii gabooyena way garan weyday waxaa yidhaha waa puntland ninkan waa nin hawiya ninkan waa nin saasa marka adeer waxa weeyaan yaa laisku mashquulin ma garateen qadiyadanna adeer waxaa la yidhaha saa in igu soo celiya mar labaad iyo mar saddexaad madhibaan wiilkiisii iyo abtigiisii iyo xeshmadiisii waa isku haynaa laakiin systemka waa inuu wax iska bedelaa wasiiro badan intaa la helo maanta haddaan anigu somalilan joogo oo aan maanta wasiir helo dee adeer muuse waa xanaaqaya tumaalkina xaggaasuu ka gubanaya waxaa la yidhaahaa bahalkiina xaggaasuu ka gubanaya leesh waxaan isku dulmaynaa ana berigii hore dadbaa cadnaa waaya berigii hore sawdiga oran jirtay waar berigii hore qadiyadda isfahamsiinayni inaan wax isku nahay inaanay sheekadu yaanan isxumayn waar midnimadu haynaga dhaxayso waa ahalnimadeenu haynaga dhaxayso walaaltimadeenu haynaga dhaxayso laakiin markaan soomaali u tegayno waxa weeyaan nin kastaba xaqiisaa qaato wallahi hawiyaha maantada la sheegayo haddaan sheekadu ay guul ay gaadho dee adeer anu magaca hawiye wallahi la ku hadlin magacayga madhibaan ba xaggaa lasoo firsanaya wallahi hawiyow karaasiyadii madhibaankayga siide ya nin kastaba af baan leeyahay ad waxa ka hadlaysa gabooye hawiyaha maanta haddaan la heshiino kursigayga waxaan ku farsanaya magacayga madhibaan baan ku farsanaya adeer magacayga madhibaan haddii diidaan iyaga u taallaa runtaa la isku sheegaya waa muqadas madhibaan meel lasoo dhaafi karo maaha kursigayga waan ku raadsanaya waxaan rabana waa ku doonaya marka waxa weeyaan waxaan la hadlayaa haddaba dhalinyarta cuqdadaysan nacnacda badan waan ogahay ininku ma tihidiin waxaa la yidhaahaa
madhibaan diid iyo midgaan diid iyo gaweydiid ma tihidiin ininku waxaad tihidiin cadnaan diid iyo xamdi diid cadnaan iyo xamdi meesha ku jiraan waa qasa uun mucaarad bilaa hadaf bas cadnaan baa ku jira iyo xamdaa ku jira marka adeer danta carruurtaada eego cadnaan iyo xamdi ha eegin cadnaan iyo xamdi waa dad bani aadama waa bashar ilaahay abuuray beri way dhimanayaan way iska tegayaan danta carruurtaada ka feker intaas leedahay xamdi iyo cadnaan ku xumee oo youtubya u soo gal oo ayeeyo u soo gal oo wallahi dad la yaqaano ma aha oo dad saas la yidhaaha intaa leedahay waxaa wanaagsan midnimada dadkaaga intaa kusoo biirtid raggan maanta fursad bay ku siiyeen hawiye tankiyu baan leeyahay tankiyu qofka hadduu kuu yimaado ku yidhaha adeer waan qaldamay garaale ahaw dee tankiyu baan ku leeyahay soo dhowaada la shaqeeya daacadnimo oo la shaqeeya munaafiqnimada madhibaano iska daaya baniminida madhibaano iska daaya tabawajiilaha madhibaano iska daaya shakiga iska saara war dadkan waa dad walaalin oo yiri anaku diyaar baa ilaa wax kasta ma waxaad doonaysa maalin kastaba keena caddeen waxaan caddeen ku keena kaale soo gal marka ugu horeysa bal marka ugu horeysa soo gal dadka soo dhex gal warayso guddoomiyaashan hawiye la hadal guddoomiyaashan cusub madhibaan la hadal dadkan oo dhan la hadal kabacdi waxaa la yidhaha xakun laakiin adigoo aana dibadda ka taagan adigoo aana waxba ka ogeyn inaa xaggaa tirahayd ma loo dhama war ayadaa u sheeg waa loo dhan yahay odayaashii madhibaan oo dhan baa ku jira odayaashii waxaa la yidhahaa wallaahi madhibaan maxamed iyo maxaadbare waa ka siman yahay ma garateen bishan 15-25 xaflad baa ka dhacaysa maraykanka waxaan xagga ka leeyahay madhibaan kasta oo aniga xagga iga maqlaya iyo nin kasta oo maxamuud gargaartaa adeer shirka waa inaana ka harin shirka maraykanka ka dhacaya waa inaa kasoo qayb gashaa insha allah haddaad joogtid maraykanka meesha ugu fog waa inaa kasoo qayb gashid waayo qadiyadan way kuqtisa haddaad siyaasi tahay haddaad cid kastaba tahay oo nin hawiyaa tahay waa inaa kasoo dhex gashaa isaaqna waxaan ku oranaa kaalaya ya tolkayga anigaa damina markaad soo gelisa xafladda waxay tahayn cadnaan ya ninka reer barco wallahi cidna kuu diideen xaflad kasoo qayb gal ninkaaga ma jirtan xaflad kasoo qayb gal ninka waar waxaan doonaynaa soomaali xumaataday samaysatay inay maanta la tirtiro sheekadan adeer intaa ka baxdiin soomaalida kala leeyahay daba socotiin waar adeer noo haneeya xaasidnimada iska daaya kasoo qayb gala xafladda ka dhacaysa waxaa la yidhahaa magaceed maraykanka waxaa ku xigta xaflad lagu samaynaya waxaa la yidhahaa ingiriiska kasoo qayb gala soomaaliyey isir naceebka iyo qabyaalada xun sidaa uga baxdiin ay lagu duceeyo ilaahay wadan soomaaliyeed oo wanaagsan inii siiyo arrintan socota baa tirtiraysaa arrintan maanta socota ayaa tirtiraysaa haddaa kasoo qayb geli weydid waxaa ogaataa yowm alqiyaama albaabkan ku taagannahay wallaahi cunsuri baa ahayd qabyaalaysti baa ahayd ummaddii soomaali waa baabiseen waxaa la yidhaha kala sarreyn kala hoos baa samayseen maanta raggan baa saxaye saxdooda ha lagu teegaaro adeer dad walaalahood ku qaldamay oo maanta raali gelinaya ha lagu sabooro xafladaha laga soo qayb galo wadaad kasta siyaasi kasta waa inuu kasoo qayb gala xafladaha xaflad yaroo xun oo aad samaysadin oo familina boqolaalkuba ku birsa xafladahagana saasaa looga dulmaraya adeer ma la rabo ninka madhibaan iyo ninka maxamed gargaarte ee madhibaan iyo maxamuud gargaarte waxaa la rabaa meeshaad joogtid wiil iyo gabadh shirka maraykan ka dhacaya inaad kasoo qayb geshid waxaa la rabaa shirka ka dhacaya waxaa la yidhaahaa magaciya ingiriis kasoo qayb geshid waxaa la doonaya shirka ka dhacaya borama ee soo socda ee soomaaliya gudaheeda inaa dadka burca iyo hargeysa iyo meel kastaba degaa inay kasoo qayb galaan nin madhibaan oo ka haraama xataa gabooyaha muuse iyo tumaal waa inay shirkaa kasoo qayb galaan naabtigay hadduu aniga ii farxi waayey gaweynimada ay sheeganaysa waxay tahay gaweynimada doonaysa ay tahay igu qasabtid waxay tahay shir aniga walaalka ku heshiinayna waan aqbalay haddaa adiga lagaa arki waayo buraabarka tiri weysa ninkaagan gabooye gabadhaadan gabooye dee hay sheegan haddaba waan kaaga baxayaa gabgigeedaba waa inaad kasoo qayb geshin shirka borama ka dhacaya waa in laga soo qayb galaa shirka puntland ka dhacaya waa in aa laga soo qayb galaa shirka ddc ka dhacaya ddc waan soo xarayn odayaashii ya odayaashii ddc ota ya ddc ya hawlow ya waa ka cadnaan baa inii heliyey afartan facebooka budboodaya yaa loo joojin maayo ya ddc insha allah xaflad baa ka dhacaysa waxaa la yidhahaa magaceed xamarna shirki weynaa insha allah bisha 8aad amba sanadka cusub bisha 2aad bisha 1aad ayaa la sameynaya sanadkan amba sanadka dambe waxaasoo dhan bayna sugaya waqti adeer 4 mucaarad
عدنان حمدي عدنان حمدي عدنان waxaa loo joojin maayo ayaan gudoomiye walaanu gudoomiye waan haji waalde waan ku fadhiyaa ya waan ku fadhiyaa siinaaye miiga fiican yihiin adeeraya siyaad bar miiga fiican yahay ya waxaa la yidhaha magacii dadkii ugu horreeyay miyay fiican yihiin ya iminka muuse bixiyo 20 sano maab dhiganaya miiga fiican yahay dee jiwaal waa meeshan atoora ka ahanaya gabooyaa lahay maan diidin gaboonimadeedii marka ragga loolqooyada soo gelaya jiwaal iska dhiib war waanahay dhaxalkii abtigay iyo ina abtigay anaa u haya ya anaa u haya gabooyana waanahay waan ku faana waa ilmaabtiyaashay waxaa la dhawka haweeney waa ilmaadeeraday walaalahay ya marka cuqdada iska saara intaas baa anigu leeyahay arrimahaas soo faahfaahinaya waxa weeyaan in aan la fahmo ayaa wanaagsan la isfahmo wax kastaba in caqabad laga dhigo ma wanaagsana maalintii dhaweyd dhalinyar waxaa la yidhaha odayaal waxaa la yidhahaa hawla ayaa madaxweynaha u yeedheen madaxweynihii marka u yeedheen sax magaca gabooyaa loogu yeeray markii ugu horreysay madaxa gabooyaa loogu yeeray laakiin odayga mustafa cagjar markii wuxuu arkay isagoo xaggan leeyahay hawle taasi arrin xun maaha hawle maadaama isagoo maal gashaday maadaama isagoo waqti u gashaday maadaama isagoo madaxweynuhu la xiriiray maadaama isagoo laftiisu uu degmada ku badan yahay oo codiisu ay ku badan tahay meeshii shirka lagu sameeyey adeer xaq muu leeyahay magaciisa intuu ka hadlo ma dhimaan intuu ka xanaaqo xaq mau laha muuse dhari intuu ka xanaaqo adeer xaq ma ku laha waxaa la yidhaha tumaan intuu xagga ka boodbooda xaq ma ku laha adeer waxyaabahaasaa laisku qabsadaa nin baa shirka samaystay qarashka gashaday waxaa la yidhahaa mustafa cagjar 10 kilomitr markuu soo socday diba xagga beel cadlaa u istaagay ku yidhi waa xaggan soo leexaniyo soo leex waa xaggan ya ma fahamteen waa ka muuse dhariye wasiir bay haystaa miya aragtay madhibaano mucaarad ku ah wasiir ku-xigeen bay ka haystaa somaliland miya aragtay annagu maalin kasta waxa mana la siiyo muuse dhariye baa iyagii baa lahaa yaa kursi kala raba kii xagga hore laaya madhibaan waxaa la siiyo hadday walaaltiba ay jirto wasiir waxay doonaya xataa wasiiro kale intay helaan madhibaan ay cagta mariyaan marka adeer waxaa socon mayso anaku filinkii waa ila meerayso waa dhammaaday anaku maanta somaliland kursigayga magaca madhibaan ba ku rabna wallaahi aanan xataa hadduu magaca gabooyo kusoo baxo wallahi warqaddan waan jarjaraynaa wallaahi intaan jarjarnaan ka ornaa fuck you iyo waxaa naga daba wejid adeer magacayga qabiilkayga ma nagu siinaysa hamisami sidaa habar jeclayo fulaan iyo adigoo jilibjiliba u kala qaybsanaysid adeer magacayga nagu sii magacayga ma doonayo aniga nin muuse iyo nin tumaal intay daba carcararaan ayaan magacayga ku fadhiya ma la rabo saa anagu leeyahay marka nin baa magacayga ku fadhiya markaasuu magac kala doonaya marka adeer cuqdada waxaa keenaysa dhibaatada keenaysa waxyaabaha waxaa wanaagsan waxaa la yidhaahaa in aan waxaa la yidhaahaa wixii caqabad ina hor keenaysa aan ka durugno aniga shaksi ahaan nin qadiyadan muddo dheer ka shaqaynaya baan ahay muddo dheer baan ku jiray anu mayhiisa dhalinyartan aqoonyahanka sheeganaysaa waxaan malaaniyo aqoonyahankaasi malaa calafay cuni jireen malaa cambuula malaa waxbay cuni jireen wax fuul af carabi lagu yidhaha marka qofku fuulka cuno subaxay fuulka ma taqaanin waa cunto yaro masaarida iyo suurida iyo carabta kale cunto fuul subaxdeeda ku qaraacatid maskaxdu ma shaqaynaysaba haddaa subaxdii cuntid fuul xaggan ka hela daasada fuul baa la yidhaha wallahi haddaa subaxdii cuntid maskaxda waxay noqonaysaa bahal culus waariyaahe su-aal baa lagu weydiinaya xagga kale sheegaysaa marka anigu waxaan la yaabaa aqoonyahan ragga isku sheegaya oo si qaldan qadiyada doonaya intay u wadaan war jaamacad baa kasoo baxday waa inaa free mind noqotaa isbedelku waqti kastaba isbedel buu leeyahay iminka berigii hore islaam baa jiray adduunka islaam baa xukumi jiray min china ilaa iyo xaggan xukumi jiray ilaa iyo soomaaliya waa laga tegey waxaa yimi wax la yidhahdo saliibiyiin carabtii iyo soomaalidii iyo wixii dhan waa kala qaybs maanta soomaaliya jirta eritrea jirta kanaa jirta adduunku mar kastaba isbedel baa imanaya isbedelku maadaama uu imanayo waa inaan la jaan qaata isbedelka markaa imanaya nin aqoonyahan baa tahay waa la darsaa wixii caqabad markaa dadkaaga ku horkeenaya waa laga dul qaadaa ma la dul saaro ma lagu adkaysto waar maanta haddaa gabooye aan idhaaha ma yihi waxaa khasaaraa gabooye waa maanta aniga yidhi somaliland ma yihidi aniga beri baan somaliland ma yihi
isaaqoo dhan baa waashay cadnaanow maanta leedahay soomaaliyad nin reer war burcana ma naqaani fakin intay kulmiyahani waxaana fadhiyaan maba yihido soomaaliyad calankiinina waan gubaya gebigiisa waa waxa lagu heshiiyo madallad maadaama wax lagu heshiiye ay tahay haddii sidii ay tahay loogu dhaqmi waayo way burburaysaa laakiin waxaa adduunka ugu xun marka adigoo aqoon leh iyo cilmi leh inta eegi lahayd waxaa xala waxaa la yidhaha inaa munaafiqnimo meesha kusii wadid aniga tayda hala maqlo annakan waxaan leenahay taayadaa la maqlaya markan intaan maqalnay waan maqalnay intaan raali sasabanina dadka waan sasabanay adeer waxaan wax wara xoolo waxa la saban karaa ma jirto runta inii sheegaya wallahi caqli ma lihidin 10 fursadood baa imanaysa 10 chance baa imanaysa waxa ka faa'iideysiina ma jirto xagaasana la soo taagantiin annaka hadhow talano ininki laftiini ayaa la arkayaa sida imka cadnaan baa noqonaysin marka aad naga daaya aakhir cadnaan baa ku dambeynaysin jidka cadnaan marba wallahi ku dambeynaysin oo ka soo hadha war aad ninka sabaas ku hadlo waay de la isku hadli kari maayo maanta anigu ma dhibaana haddaan hadlo waxaa la yidhaha 10 muuse iyo 10 yibira iyo 10 bahalkiiba xaggaa oranaya ninka nimana matalo deena galadaa taada ku hadal taasar waxaan ku khusayay qadiyada gabooye tan adeer maxamed gargaarte adeer waa dad walaalo ah adigoo muuse yibira hawlaha waana garanaysaa adeer anaka sheekadeeda ma raggi baktiga cunay baan nahay anagu ya magacayga inta ku shaqaysateen waa ku shaqaysateen midigaan baan nahay bakti baan cunaa baa leeyahay social media kii muuse soo farsanaya kii tumaal baa soo farsanaya kii yibir baa soo ruuxa waa laga baxay raggi magaca lahaa baa soo baxay adeer anaka baktiga cunay anaka aan la xaal malinaya maanta ايش عندكم يا والله ما انت laga bilowba kiil ma in intu aniga sheekadayda ku shaqeysto wallahi ya بعدين يا اخي ما قرأتين marka insha Allah khair weeyaa saasan ka baxaya ma fahanteen xagana madhibaan Puntland baa xagan taagan ragga madhibaanka Puntland waxa weeyaan waa dad two face aad ba mahadsantihiin ya waa inoo iyo waxa la yiraahdaa mar dambe aad ba mahadsantihiin mac salaama